daawadayaal intaan la socotay warkan ka horeeyay diyaaradii siday xildhibaanad Sacdiya Salaad ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn ka degatay magaalada Boosaaso. duuliyaha diyaaradda ayaa sheegay kadib markii uu la sameeyay xiriir asagoo hawada ku sugan in uusan haysan shidaal uu ugu laabto magaalada Muqdisho. duuliyaha ayaa si naxariis leh uga codsaday maamulka aeroboortka magaalada Boosaaso iyo ciidamada BMBF oo sameynayay hor-istaaga inay ka soo degto diyaaraddan aeroboortka magaalada Boosaaso in loo fasaxo inay qaataan shidaal. durbaba markii ay diyaaraddu caga dhigatay waxaa xarunta soo gaaray ciidamada BSF oo ah ciidamo ka amar qaata dawladda Mareykanka gacantana ku hayaan ilma diyaano. ciidamada BMBF iyo BCF ayaa dagaal ku dhex maray halkaasi. waxaa laga arkayaa aeroboortka magaalada Boosaaso qiiq aad u ba'an. sidoo kale waxaa la maqlayaa rasaas isgoosgoosa. dadweynaha ayaa qaar waxay noo sheegayaan in halkaas lagu gubay gawaari ay leeyihiin ciidamada BMBF. kadib dagaalkii dhex maray ciidamada BSF ayaa ka codsaday Sacdiya Salaad inay ka soo degto diyaaradda ayna dejiso deeqda raashinka ay wado. Sacdiya Salaad ayaa ku adkaysatay inaysan ku faraxsaneen inay ka sii degto diyaaradda ayna la rajaynayso sida shacabka diyaaradda saaran iyo bayloodkaba ay ku laabato magaalada Muqdisho. khilaafka ayaa ka dhashay kadib markii ay Sacdiya Salaad isku dayday inay deeqdan raashinka si toos ah ugu wareejiso aysimada gobolka Bari, halka maamulka gobolka Bari ee ka amar qaatay madaxweyne Deni ay arrintaasi diideen kana codsadeen Sacdiya Salaad iyadoo Muqdisho joogta in deeqdan raashinka lagu wareejiyo maamulka gobolka Bari maadaama ay maamulku ay mas'uul ka yihiin wax kasto imaanaya gobolka Bari. muddadanba waxaa socday khilaaf u dhaxeeya isimada gobolka Bari oo isgacansanayaan ciidanka BSF iyo xukuumadda Siciid Cabdullaahi Deni. hadda waxaa la xasuustaa dagaalkii kharaara ee ka dhacay magaalada Boosaaso u dhaxeeyay ciidamada BSF iyo maamulka Puntland. dhagaystayaal daqiiqad waxaan ila socodsiin doonaa wararka ka soo cusboonaada qalalaasaha ka taagan magaalada Boosaaso. nagu xirnaada fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahayna subscribe noo saar si aad ula socoto xogaha xogtan xiga. mahadsanideen.